Waan ku salaamay daawade muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa wiilasha Soomaaliyeed ee guursaday gabdhaha ajaanibka ah. Suurtagal inooma ahin inaan wada sheegno dhammaantood, balse waxaan soo qaadan doonaa inta badan lamaanaha ka caanka ah baraha bulshada. Lamaanaha koowaad aan soo qaadanana waxay noqon doonaan aniga magaceega waxa weeye Nicole. Jamaal iyo Nicole waa lamaano ku nool waddanka Mareykanka. Waa aabe iyo hooyo leh 4 ciyaal ah. Waxay nooga sheekayeen sida ay isku barteen Nicole Islaam inay tahay iyo in kale. Okay, so we're going to actually be answering how we met. So I grew up Catholic, Christian, didn't really believe in what they were teaching us in church. It never made sense to me. So I kind of veered off of that religion, stopped going to church, and, you know, fast forward a few... mahadsantiin dhammaantiin horta qofku ilaahay hanuuninaya hanuunsan gabadhaan umay baahneen wax weyn dhactaan uma baahneen sababtoo qof wuxuuba ahaabo oo diinteedii ay haysatay waxyaalo badan oo shucaac aga furan yihiin shucaacaas waa qofku ilaahay soo hanuuninaya meelo badan oo ka soo hanuuniyaa anigana qof muslimaan ahay wixii karaamkayga waxayd inaan qofku u sheego waxaan aaminsanahay iyo wixii aaminsanayd markay aragtay waxaan aaminsanahay iyo waxaan u sheegay inuu ninkii maartay ninkii u maleynaysay inuu yahay ilaahay u maleynaysay inuusan ilaahay ahayn oo prophet yahay oo ilaahay soo diray sida prophetyada kaleeto adii markii wixii dhan dareentay way ka heshay diintii kadib markay ka heshay ani ayada waxaan go'aansanay inaan isla sheekaysano sheekadeena markay dheeraatay isla sheekaysanay muslim markay noqotay kadib waxaa dhacday inaan u sheego aan raadaan muslim noqotid waxay ogaataa hooyada inay ku nacayso aabbaha inay ku nacayo walaalaha inay ku nacayo dadka kugu dhow inay ku nacayaan diyaar ma u tahay hay'ad wax naga magaladaan ku jeclahay kadib waxaan ogaaday in aabbaheed uu aabba fiican yahay hooyada hooyo fiican tahay ay gabadheeda si fiican isu dhaweeyeen ani ii soo dhaweeyeen laakiin waxaa jira dad badan dhibaato nagu sameeyay oo kamid ah sida walaasheed oo kale si fiican isu dhaweeyeen ani ii soo dhaweeyeen laakiin waxaa jira dad badan dhibaato nagu sameeyay oo kamid ah sida walaasheed oo kale to Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Masha Allah. Nicole waxay jeceshahay barashada af Soomaaliga. Mana la garaad baa tahay One more time. mana la garaad baa tahay Manalagrad Batahay. That's it? yeah I said it better than him. hold on a second Manalahad Gratabay. Did I say it right? mana la garaad baa tahay Manalagrad Batahay. yeah I used to Nicole waa gabadh inta badan ay ka hinaasan hablaha Soomaaliyeed maadaama ay tahay cadaankii la raadinayo lugaynaya ilaa markaana romantic ah. Lamaanaha labaad ee aan ka hadli doono waxay noqon doonaan Cabdiyare iyo Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damantin. dhammaan khiyaarta Cabdiyare yo Ines. Haye, Abdi, dov'è la coppa? a Roma. Perché? Cabdiyare waa wiil Soomaali ah isla markaana ku nool waddanka Talyaaniga. Ines ayaa isbarteen oo sidoo kale ayadna Talyaani ah. Sida ay sheegeen waxay isku barteen meel lagu ciyaaro droniga. ogsoonow inaan ku jecelahay ana laafiyo kubadda ma odhan karno Ines waa gabadh muslima waayo ma hayno caddayn muujinaysa islaamnimadeeda inay iyadu islaam tahay. Haddaba muuqaalkeena maanta halkaas ayuu inaga eegay.